Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta qiimaha badan kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe inoo saar, muuqaalkana like saar, qaybta hoose commentiskana inoola wadaag wixii fikir iyo faala iyo dhiirigelinba. Mahadsanid. Maantay waxaan idinla wadaagi doonaa 7 qof oo sumaysan oo gebi ahaanba loo baahan yahay inaad noloshaada ka saarto. Waxaa macquul ah inaad leedahay saaxiib noocan ah ama ha ahaado qof aad xiriir wadaagtaan. Waxaan kugula talinayaa inaad ka fogaato ayna u wanaagsaneen la jirkooda noloshaada. Inta aadan ka fogaan, waxaan sidoo kale ku raacinayaa inaad ka waaniso ilaa iyo inta aad karto. Waxaa wax dabiici ah in dadka qaar ay jecel yihiin in ay yeeshaan asxaab badan ama saaxiibo badan. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad ka fiirsato dadka qaar u dhawaanshiyahooda si aysan kuu sumayn. Qodobadan aan kuu sheegi doono laga yaabee inaad horay ugu aragtay qof aad kuugu dhow. Waxaana jiri karta in iyagoo leh astaamahan aadan dareemin oo aadan ku feejignayn dabeecadahooda xun. Taasina waxaa sabab u noqon karta da'daada oo yar awgeed, ama fikirkaaga oo liita, ama se jacayl aad u qabto qofkaas awgeed. Inaysan indhahaaga qabanayn habdhaqankiisa xun qofkan oo keliya ay kuu muuqato wanaagiisa. Way adag tahay iyaga inaad ka dhaadhiciso amaad u sheegto oo ay kaa aaminaan inaad mar waliba ku aragto dabeecadahan sumaysan. Balse qofka keliya fahmi kara xaaladooda waa adiga. Haddii aan gudaha u galno nuxurka mawduuceena oo aan idin taxo dabeecadaha shakhsiyaadka sumaysan ee loo baahan yahay inaad ka dheeraato. Midka koowaad waa midka maseyrka badan. Mararka qaar maseyrka haddii loo eego dhanka wanaagsan ma ahan wax xun, balse kan aan ka hadlayo kaasi maahan. Waxaa jira dad mar waliba ka masayra horumarkaaga. Tusaale yar haddaan ku siiyo, laga yaabee inaad la kulantay dad aan marnaba u muuqan waxa ay haystaan, keliya diiradooda ay tahay sidii aad ku weyn lahayd waxa aad adiga haysato. Xitaa kuma farxaan horumarkaaga, kumana jiraan dadka kugu hambaliyeeya had iyo jeer markaad guul gaartid. Xaaladaasi qofkan waxaa ku kalifi kara masayr iyo xumaansho uu ka xun yahay higsiga horumarkaaga iyo ka dhabaynta hadafkaaga. Ma mudna dadka noocaasi ah in la soo dhawaysto, sababtoo ah waxay lid ku yihiin sida aan doonayno nolosheena. Qofka labaad, danaystaha. Midka mar waliba naftiisa ay kala weyn tahay naftaada. Qofkan wuxuu noloshaada ugu jiraa inuu kaa dhigto furaha hadafyadiisa u qaaska ah. Mana aragtid qofkan mar walba, waayo kuuma baahno mar waliba, laakiin wuxuu ku soo xiriirinayaa markay dani kaa soo gasho. Balse markiisa markaad u baahato kuma fuliyo waxaad ka dalbatay. Mana ahan qof dan iyo heelo kaa leh. Laga yaabee adigii inaad mar waliba is leedahay qofkan u kaadi aysan burburin saaxiibtinimadiina amase xiriirka kaala dhexeeya. Asna dhankiisa wanaagaaga wuxuu ka sii qaadayaa fikir ah inuu yahay qof kaa aqli sareeya, aadna u tahay wakiil u xilsaaran fulinta howlihiisa u qaaska ah, amase qof uu soo xasuusto keliya markuu u baahan yahay. Mana mudna qofka noocaasi ah in la soo dhawaysto. Midka saddexaad waa midka jecel faafinta ceebaha dadka kale. Dadka noocan ah uma aabiyeeli doonaan maalintaada aadna inay ku fadeexeeyaan amase ay faafiyaan xumaantaada, waayo adiga wuu kuu keeni jiray ceebaha dadka kale. Ma mudna qofka noocaasi ah in la dhagaysto, iska badaaya in lala saaxiibo. Caadooyinka noocan ah badanaa waxaa yeesha gabdhaha, inkastoo ragga qaar ay kaga badan yihiin dumarka qaar. Diin ahaan, xanta iyo faafinta xumaanta ama ceebaha dadka waa arrin nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uu nooga digay in badan. Waana mid ka mid ah sababaha lagu mutaysto naarta Ilaahay subxaanahu wa tacaala nooma kasee. Inta aad awooddo ka dheero qof kale shakhsiyadda noocan ah, kana waani intii karaankaaga ah. Waxaad se ogaataa
haddii aad qofkaasi ku taageertid amase aad noqotid qof ku riyaaqsan dhegaysiga wararkiisa xun inaad naftaada u horseedayso dembi iyo caro Ilaahay. Qofka afraad, midka wejiyada badan. Maalinba wuxuu kula imaanayaa weji cusub, maba ahan kii aad balanteen shalay. Mar waxaad arkaysaa isagoo wanaag badan kuu samaynaya, isla isagii ku wanaajiyey shalay ayaa maanta ku xumeynaya. Dadka noocan ah ma ahan kuwa lagu tashan karo, oo mararka qaar waxaa ka suurooba inay kugu ceebeeyaan meelo aadan ka filayn. Sidaa daraaddeed, saaxiibka noocan ah ama qofka noocan ah uma wanaagsana sharaftaada. Qofka shanaad, midka balwada leh. Waxaan ka hadlayaa balwada xun ee ah noocyada kala duwan ee maandooriyaha. Noocuu rabo ha noqdee, waa mid adiga ku saameynaysa, waxaana suuragal ah inaad laftaada barato, taasoo sabab u noqon karta saaxiibtinimada ama dhawaanshaha qofkaas aad la yeelatay. Inta badan dadka maandooriyaha isticmaala, haddaad baarto waxaad arkaysaa in ay ka barteen kuwii iyaga ugu dhowaa oo ay kala dhexaysay saaxiibtinimo amase ha noqoto xiriir. Barooba lagu bartaa balwadee umana wanaagsana caafimaadkaaga, waxayna kaa dhigaysaa qof aan waxba u shaqaysan adduunyo iyo aakhiraba. Waxayna kugu diraysaa dadka, sidaa awgeed isaga fogow saaxiibka balwada leh, kana waani intaad awoodo. Qofka lixaad, beenaalaha. Waa mid ka mid ah calaamadaha lagu garto munaafiqiinta oo uu noo tilmaamay nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Qofka caadaystay beenta wuxuu saameynayaa noloshaada ilaa heer laga dhaho waa saaxiibkii beenaalaha. Lagana yaabee inaad adna noqotid mid caadaysta caadada saaxiibkiis oo ah beenta joogtada ah. Waxayna kaa dhigaysaa inaad weydo aaminaanta dadka ilaa heer lagugu yeero beenaale. Beenta ma ahan astaan wanaagsan, waana caddeyn lagu garto dadka xun ee gebi ahaanba ka dheerow saaxiibka noocan ah. Qofka toddobaad, midka kaa mashquuliya cibaadada Allah subxaanahu wa tacaala. Cibaadada waa lafdhabarka nolosheena, sidaa darteed ka dheerow saaxiibka kaa mashquuliya amase kugu ilowsiiya salaada iyo guud ahaanba cibaadada waxyaaba aan macno lahayn sida sheekada iyo wax kastoo kaa mashquulin kara diintaada. Saaxiibka noocan ah wuxuu halis ku yahay inuu jaro xiriirka kaala dhaxeeya diintaada intuusan ku horseedin naar. Allah subxaanahu wa tacaala nama tusee, ka dheerow haddaad fursad haysataa, kana waani xumaantuu ku jiro saaxiibkaaga. Waxaan jeclaystay inaan 7 qodob ku soo afmeero mowduuceena. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan, subscribe inoo saar, muuqaalkana like saar si uu gaaro asxaab badan. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada.